madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan isla gudoomiye cusub ayuu waxa uu magacaabay gobolka Hiiraan wareegtadani ka soo baxday madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay sheegaysaa in agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabelle laga qaaday asagana xilka agaasimo cusubna loo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xilligii la doortay shaqadii ugu horeysay oo qabta ayaa waxa ay noqotay in xil gudoomiye uu ka qaado midna uu magacaabo wareegto madaxweyne ujeedo magacaabis gudoomiyaha gobolka Hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle markuu la tashaday gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle markuu tixgeliyay talada ay soo jeediyeen duubabka dhaqanka ee gobolka Hiiraan ama guud ahaan duubabka dhaqanka ee Hirshabelle wuxuu xeeriyay waxaa xilkii gudoomiyaha gobolka Hiiraan laga qaaday mudane Cumar Aadan Deeqo Cumar Baadiyow 2 waxaa xilkii gudoomiyaha gobolka Hiiraan loo magacaabay mudane Cali Jeyte Cismaan 3 xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markuu madaxweynuhu saxiixay madaxweynaha wareegto madaxweyne ujeedo magacaabis agaasimaha guud ee madaxtooyada Hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle markuu tixgeliyay baahida loo qabo dardargelinta howlaha madaxtooyada wuxuu xeeriyay waxaa xilka agaasimaha madaxtooyada laga qaaday ambassador Cabdiqaadir Cabdulle Xooshow 2 waxaa xilka agaasimaha madaxtooyada loo magacaabay mudane Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir 3 xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markuu madaxweynuhu saxiixay waana saxiixay labada wareegto taariikhdooda waa 19 bisha September ama bisha 2017 aad u mahadsantiin Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Alfa warbaahinta Jubba Shabelle News magaalada Jowhar